haddaad ku dhashatid yes haddaa uu marka walaalo qurbaa soo anaa kaaga gashay jawaabaya yeah open your yeah mind up asma soo dhawo walaal sexuality waan dhawaay walaalkaysi hello sexuality-ga qofka iyo genderku wax kala duwan weeyaan sexuality-ga waxaa la yidhahdaa iyo qofku sida wuxuu ku dhasho iyo rabitaankiisu waa wax kala duwan baan af soomaali waan isku dayay inaan kugu sharaxa sida wanaagsan qofku haddii uu rabitaankiisu uu yahay jinsiga isaga la midka ah oo sida wiilka ah gabadh hadday tahay inay gabadh tahay ay rabitaankiisa sidaas tahay waa lagu dhashaa wax intaad iska soo samaynaysid qofku ma garanaysaa inuu rabitaankiisa iska sameeyo uu yidhaahdo maantoo dhan haddii aad qof straight tahay adigu qof aad tahay gabdhaha jecel oo wiila aad tahay ood gabdhaha mooyaane aadan qof kale dareen u qaadi karaynin straight baa tahay ma bedeli kartid oo ma noqon kartid maxaa la yidhahdaa gay ma noqon kartid haddii aad gay tahayna gay baa tahay straight ma noqon kartid maxaa la yidhahdaa ummadda ilaahay abuuray waxa badan inta badani waa straightka inta in yaroo waxaa jirta LGBTQ oo kala duwan oo noqon karaysa transgenderka qof gudaha sida uu ka dareemaya gabadh ka dareemaya laakiin dushi ahaantii nina ama dushii ma garanaysaa gabadha oo hoosti ka dareemaya markuu cashan niyad ahaantiisa iyo dareenkiisa gudaheedna dareemaya inuu wiil yahay transgender baa la yidhahdaa ku kalena qof labada dhinac dareemaya labada dhinacba dareemayana wuu jiraa ma ogtahay marka waxbarasho badan bay u baahan tahay maxaa la yidhahdayey waa siduu ilaahay u sameeyey marka qof bili aadana siduu ilaahay u sameeyey laguma qabsan karayo wax ka daran inuu qofku been intuu sheego imika oo kale inamada badan ee gayga ah ee soomaalida ah gabadh bay guursadaan sababta gabadha inay guursadaan ku khasbaysana waxa weeyaan lama soo bixi karaan rabitaankoodii oo ma sheegi karaan rabitaankoodii society-gii baa khasbaysa inay ku jiraan box oo ina ogolaanin rabitaankooda inay ka hadlaan midka geesiyana wuu jiraa oo soo baxa laakiin aada u maasantay waa ugu jawaabtay su-aasha anaa waxaa rabaa inaa su-aal kala weydiiyo haddaa ugu jawaabaysa adina waxaa waay taas mid kale waaye asidoo igu jawaabayna waxaa waaye aad waxaa u jeclaala asina igu jawaabana mafahanti haye ku soco okay abo midaan ku weydiinaya waxaa waaye yaad rabtaa inaad ku jawaabo aniga miyaa mase wiilkaad rabtaa inaad ku jawaabo qof kaloo yani oo kaniisa maa meeshaan joogto walaalka aniga xitaa kaniisa ah aniguna khaniis baan aniguna khaniis baan aniguna khaniis ma ihi khaniisa asma good question yeah inta khaniisa way isaqaaniin waxaa waaye ani ma jirto ma fahantay kuwa khaniisa way isaqaaniin khaniisiinta la hadlaa marka adaa ku xitaa waa nala joogtaa sug haye ku soco abtu waxaa ku sheegaa waxaa waaye waxaa naagnimada ka dareemaysid gudaha maxaa waaye iyo waxyaabahaas ma arkin oo in iska dhaaftid yacni ilaahay qof boqolle oo kaa dhigay oo nin rag ah see ku dooratay inaad adi futadaada dhiibatid oo adi yacni dareen aa isbedeshid walaalka su-aasha miga jawaabi kartaa anaa kaaga jawaabaya qoomaluudnimo qoom ilaahay halaagay oo G-spot waxa la yidhahdaa inamadu leeyihin xagga dambe ka leeyihin dhegeysta horta asmo ninkaan muslim ma yahay mise maaha sug adigu diintaa kusoo marmarsiyoonine waxaan ka hadlaynaa G-spot horta ma yahay mise maahan maya macnaha su-aasha iga jawaab ninkaan muslim ma yahay mise maahan walal war adi diin baa lagu yidhi adi ma sheekh baa tahay maxaad masaajid u fadhin weyda okay su-aashayda iga jawaabi ma masaajid baad joogta hadda iyo meel lagu wacdinayo abaa saas maahan ani waxaa waaye wacdi iyo waxaas meesha su-aasha anikaa weydiiye haye anaa si fiican kuu fahansiinay walaalo G-spotka inamada xagga dambe bay ku leeyihin xataa inamada straightka cilmi badan oo lasoo dhigtay oo dadkii kaa horreeyey soo dhigteen oo adduunka o dhan lasoo dhigtay ayaa waxaa la ogaaday inamadu cilmi maba aaminsanin hadda kadib cilmiguu sheegaya in la dooran karo waxaa hoos laga dareemaya gabarnimaa laga dareemooyaa iyo waxaas calaalasaax waa fahantay ninkaan hadda furtadaa ku weynaatay ma fahantay waxyaaba asaa dalbaday wuxuu asi dalbada waaye ilaa amarkiisa maaha ma fahantay wait hal mar asma hal mar ii qabo asma hal mar telefonka iyo hal mar ii qabo hal mar muudiga aboowe waxaan ku weydiinayaa adinka ragga oo ragga Soomaaliyeed maxaa ku maagtaan inaad ilmaha yaryarka ee dhalinyarada oo yaryar oo wiilasha ah kufsataan
cunug aad 4 jir iyo 6 jir aad ku kubsateen markuu weynaado qoomuluud aad taageertid ani nin ilaahay ka cabsanaya mid koowaad midda labaadna waxa waa yarkan waxa uu sheegaa ilaahay waa ka wada cabsanaya dhageyso Soomaalima aniga Soomaalima weligay ni Soomaali oo qaniis ma arkin hadda koor yani laakiin dikaan hadda ma waanigan wala qaniis waaniga khaniis baan xitaa kuma caayo kuma aflaga deeni waxba kala kuma oranayo khaniis baan ahay tiyo laakiin maxaa ku doorata qaniis maxaa la qalad maxaa waa laakiin waxa qaniisnimadaas iyo naaga ilaahay ku baniyay adiga marka naad wasayso soo dareen umaada dooranay marka naad suulayso wala asdegeysano way hadda asna dareen kaaba wada asdegeysano ma ilaahay ma uu talagelina meel xaarta inuu gusli geliya uu talagalabo war adigu edab darin idama dhageysan adiga hadda naagaha ooga dalmootiin naagaha meel ilaahay uu talagalabo cariiriya alla ismaqlo Soomaali weyn naagaha dabada kaga galmootaan iskaba dhaafe war hada mesh meel alla ismaqlo ila isdegeysta fiican dad weyn meeshan joogo aan yarkan caadi u weydiiyay waxa waa yar oo Soomaaliya luqadeenu ku hadlo rootaysamat inuu noo soo marsado adduunka doma dhirtaan oo la sheegay Soomaaliya inuu rootaysamat noo soo marsado kaamir roof adduunka gabagabu marooya abo adduunka gabagabu marooya dhimala waa wada bixina hal meel u socona Soomaaliya daana adduunka gabagabu marad naarta kula kacday ma fahanti no phrase open your mind abu waa kula hadla hal mar abu waan hayr aamusna 30 second Sabrina waxa dhacday sababta Soomaali oo ciyaalka yar ay kufsadaan Soomaali dhamaantood maaha waa dad qaarkood oo la tarin kara 2 qofood 3 qofood waa markaas ma dhigi kartid open mind abu hal mida ku sheega hal mida ku sheega open mind abu fiiri aniga hadda kula hadlaayo waagi hore been ma ku sheegay qaniiska qofka xitaa waan kama tagi jiray markuu iga hor imaado wadada nin kaliya jilcan fiir inuu qaniis yahay anoonan ogeyn oo kaliya aan arki inuu dumar u badan yahay u jilcan yahay laba boorka xanuuni jiray aniga ee tahana dadka markaan wadada marahay wiil aali dhahaa ninina tahay aali dhahaa saas ee tahay ma sii daneeni jirin waan nacbaan jiray dhanka qaniisiinta ilaahay baan ku dhaartay oo maalinta qiyaamo la ii soo toosinayaa dabaqa aan deganahay iyadoo dariskeyga ay wada joogaan maamo sheeqada oo cunugeeda maalin kasta direysay baa cunugii waxaa la arkay dhiig furtay cunugii sakaraad isbitaal la seexiyay waxa kaliya sidaas u galay waa nin Soomaaliya wallahi waa 8 jir Sabrina waa qof waa 8 jir waa la joogo ma hal mar horta soo wax yaba ku tusiyaa ay mukula fiicantay marka arrintu ninka sameeyay mukula fiicantay habreer ninkaas nin straight way fiiriya ninkaas ee sida sameeyay ee maanta hadda cunuga yarka dhibaatay cunugaas markuu weynaado maxay kula tahay inuu noqon lahaa ma wuxuu noqonaa nin straight ah mise dareen oo LGBT qaadanaya wallahi allah hadda galaya may hadhowda cunugaas markuu weynaado waxaa la leeyahay qaniis waaye saas waaye LGBTQ ma noqon karaysid because lagu soo kufsaday ma noqon kartid waxaas waa been ay aaminsan yihiin dadku ma aha waa lagu dhashaa maya dareenka lagu dhashay kala saar qofna waa qof uu u bartay qof ilmaha jecel taana waa in lagu kala qabto laakiin asmo wallahi أسمع قفنا أبا يساو شيكتو واي أسمع المريسوق أسمع ولا شيء أسمع هذا وما المشكلة نولا على مشكلة موتك أصحابي موتك على يقدر فهمتين بدأ أسمع لكن I'm gonna go بحال واحد دوني نرده استري باتنا وحبرشوا وحلا صوب برتي دتك وقلنا عب هوموفوبيك دتك نعب دتك homophobic في Soomaaliya si lagu leeyahay ogaanay dadka gayga nacab iyo LGBT nacab waa dad aan iyaga laftirkooda sexualitygooda ku kalsoonayn oo LGBTQ-ga ka mid ah laakiin aan ma garanaysaa geesinimadii ay ku soo bixi lahaayeen aan lahayn aniga Soomaaliyan waxaas dhaqan gaalo waaye sexuality barwaali waxaas aan oo daldalaysid waxa aaminsan ma ku leeyahay oo Soomaalinimada kala saarday adiga oo kale waxaan hubaa boqolkiiba boqol inaad LGBTQ ka mid tahay inaad khaniisiin asma la u yaran xariiso nin khaniis nin xaasla ma faatay laba cunug ay joogto nin laba cunug joogto xaasla meel degan ay ugu dambaabin ilaahay wuxuu dhalaa
خنيس ما هو دلا أنا ما تقوليش قلت ما بي no face خنيس كلك أكفلي وأنا كقصلي سيدي عالي سكري أنا يقصلني خنيس بات هاي هاي ما يقصلني خنيسة قال إيما وأنا أنا كقصل سيناي خنيس كبا هو دلا رج waxaa jira de guska aan ban u soo kicin ba soo la dubeeyay waxa ka siya oo naagtiis okay كيس يرحد كيس ندوني نلا هادلو وايد كبحيا كيسه خنيس مكورة حكري يا باي اسمه وكاد كيسه you know everybody قفل بايساقا نولشن أدونك نول it's your life and like keep the good work شقة بدن بالهايسا أودن أوجين الباب كان ضد مال بقف بافوريا ينا in la wax la baro oo luqada Soomaaliga lagu hadlo dadka loo sheego leeyahay war qofkii wuxuu doorto hal iska nabad geliyo waa intaan waaba inta dhibaato kale ma taalo hadda kaniisaan straight kaaga اوكي كيس نوشي قنيس لو سمعتها مس قنيس wax wasaatay hadi waxaas ma jiraan hadii labaduba iyagu waa labaduba Soomaali waxa saamsan yihiin labada buwe sameeyaan miya labada buwe sameeyaan labada buwe waxay la sheekay asma أعوذ بالله من الشيطان wiilkan idhaaf هذا wiilkan aw adduunkii aakhirada waxa kale ogeed iska dhigooyeen waxa laga yaabaa daily inuu qaniisiinta oo isbon starkooda daawado wiilkan idhaaf maana isu dhibaan ana isu dhibaan abtiyo kayse walaal maxaa ku gubay aaga waxa laga yaabaa inaa muufiyada oo geeyga aad daawatid maxaa ka gubanaysaa adaa geey ani mi u tilmaami kartid luuqada geeyna ma daaban adaa luuqada geey daawatid waxyaabahaas ma fiirsatid ninkaan hadda fiirsatid ani waa ku heestaa waa daraagan wiilka dhaaf walaal aggressive inta leeyo ku hayaa muxuu yahay frustration inta leeyo ku hayaa muxuu yahay anaa dabadeeda iska leh anaa dhigta aduu dalolkaaga ilaasho taas ma problem baa inna lillahi waxa waay استغفر الله سبحان الله قلت لك انا واني كيف دفاعنا كيف دفاعنا horta way adag tahay sida looga dhaadhicin laakiin waxbarasho badan baa loo baahan yahay kowdhi qofku marka uu sexuality-gii iyo gender-kii baa iskaga khaldan waxay gaala u dhigaan ma aha waa qofku siduu yahay marka walaalow waxaan anigu ku leeyahay waan jeclay horta sidaada Soomaali fasiixa ugu hadlayso id welibana you know aad fikradaada dhiibanayso adiga oon ka xanaaqin oon personal u qaadanin marka waa loo baahan yahay dhalinyar noocaas ah qofku waxa uu yahay inuu iska ahaado baa wanaagsan inay ummadda kalena ka nabad helaan waa waxa ugu muhiimsan caafimaadaysa lifekaaga dhan baa isbedelay ayaa isbedelaya marka ummadduna kaa nabad helaan yes ma xanaaq badnaanaysid imika sida ninkan odayga karaya wallahi xanaaqi baroriga yaraad waayo markaad noloshaad rabtid ku nooshahay ay lifeka aduu rabtid ku nooshahay wax badan baa kaa bedelaya maskixiyan marka dadkeenu taa inay fahmaan weeyaan waddankeenan karaya dadkeenan karaya waxbaa dadka karinaya problemo badan baa jira dhibaatada heesataa kuu sheegayaa ekeyse dadkeena waxaa waaye wixii annagiyo baahi qabno oo rabitaanka nagu jiro haya asma abaayo haye dragon follow me back adiguna walaalo keep the good work waan ka baxaya inaan macneeyo haddii doonayaan anigu waxaan ahay clinical nurse baan ahay medical doctorna waan dhigtaa sababtaasaan fikrada caafimaad xataa waa u sheegi karaa hadday doonayaan marmarka qaarkood af soomaaligana si fiican maan waa qaanayo waa u sharxi karaa so isoo qabanaya asma oh my god thank you so much walaalo thank you so much wallahi aan ku baahanay aad ya isoo qabo marmarka qaarkood si aan xaggii cilmigii waxbarashadana aan ugu sheego sababta saasaan u lahaa G-spot-ka ragga xaggaasay ku taalaa yiraahdo taa ma oga xataa Soomaalideenu waxaa waaye baahida anagoo qabna xitaa waa qarsanaa wax kaa dhageysanaya malahan anagoo rabno qaadana xitaa ma aragtay cilmigaaga oo ka faa'iideysanay inkireena haye waa idin salaamay markaa waa idin ka baxay